xilkii laga qaaday adigii ku xigeenkii xisbiga kale kula socdayba shir degdeg oo ay yeesheen guddiga fulintu ka sharci ahaan sidoo walaal بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد runtii arinta iminkaan maqlayna waa arin aad iyo aad muxuu ahay loola yaabo sababtoo ah gudoomiye ku xigeenkii koowaad baan ahay gudoomiye ku xigeenkii labaad baa ila socda xogayaasha xisbiga ila socda in gudoomiye ku xigeenka koowaad xisbiga iyo gudoomiye ku xigeenka labaad uu yiraahdo kusama gudoomiye xil baan ka qaaday horta waa arin ceeba in la maqlo xitaa maahayn aniga gudoomiye ku xigeenkayga iyo xogayaasha ila socdaaba garab baan nahay cabdiraxmaan cirana garab uu hogaaminaya awood xil laygaga qaado oo gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo ka labaad laga qaado sharci yaalana ma jiro xisbigu sharci uu leeyahay sharcigiisu anagu markii la dooranayay shirweynaha la nagu doortay 350 baan ansixiyay xilka qaadidaydu sifa sharci mari doonta hadii la qadoonayo laga qaado waa marka shirweynaha xisbiga la qabto xilka la naga qaad kara aniga cabdiraxmaan cirana xisbiga waan wada leenahay waanan u simanahay laba garab baan kala hogaaminaynaa garabkayga yaana ka awood badan waxa ila socda gudoomiye ku xigeenkii labaad xisbiga iyo gudoomiye ku xigeenkii koowaad iyo xogayaasha xisbiga ila socdaan gobolada dalka oo dhan waxaanay waa ururkaygu cadaalad iyo toosintu waa garabka ugu taageero badan marka arinta maanta dhacday runtii waa arin sharciga xisbiga baalmarsan ma sharciyada xisbiga kusime inuu yiraahdo gudoomiye ku xigeenkii koowaad iyo kii labaad baan xil ka qaaday eebay ku tahay qarankeena maqlaan dadku waxaan leenahay waa arin sifa sharci darra ah afar qof oo isku reero inta meel isku yimaadaan xil ka qaad kartaan ma jirto afar qof bay ahaayeen afar qofna xil ma qaadi karto xisbigu shuruucda hadii laga boodana waxay noqon doontaa inuu nin walba awoodiisa isticmaalo marka waxaan u arkaa arinkaasi runtii arin khalada waxaan u arkaa arin baalmarsan sharciga xisbiga oo dhan laba garab baan nahay laba xisbigana waan wada leenahay cabdiraxmaan cirana garabka hogaaminaya garabkan waa hogaaminaya ka xoog badan marka waxaan isleeyahay waa rafad waa cadaalad darradii shirkii ka dhacday ambaastole dhacay shirweynihii xisbiga shirkii golaha dhexe halka ka dhacay cadaalad darradii ka dhacday oo wali wadan uu ka soo kabalayo caalamku ay aad u leeyaabeen cadaalad darradeedii labaad bay maanta ku dhaqaaqeen marka taa xisbigu meel ku gaari maayo talaabadeedu halkii ku dambeysana waynu eegi doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantihiin